واتهاي dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda Kali Somali American Radio anigoo ah Prince Ali waanta waxaa barnaamijkeena wada Kawsar Cabdullaahi barnaamijkeena maxaa cusub mowduucana wuxuu noqonayaa dumarka ama ragga yaa wadanka Soomaaliya ka jiifo marka insha Allah waxaad doonaysaa inaad ka qayb qaadato xagga Facebook live ka oo nagala socon kartaan haddaad doonaysaa inaad idaacadda naga soo garaacdaan WhatsApp numberkeena waxaa weeye 624 haddii mar idin ku celiyo xagga WhatsApp-ka waxaa weeye 624 mowduucina waa dumarka ama ragga yaa ka jiifa wadanka Soomaaliya haddana maanta Kawsar baa joogta Kawsar marka dhinaca Kawsar dumarka ayaa u doodaysaa anna waxaan u doodayaa xagga ragga anna waxaan aaminsanahay in ay ka jiifaan dumarka wadanka Soomaaliya marka insha Allah haddaad doonayso inaad ka qayb gashaan barnaamijka maxaa cusub waad kala socotaan idaacadda Kali Somali American Radio mise xagga Facebook live ka insha Allah barnaamijka sii share garaya saaxiibadiina sii gaarsiiya Kawsaray soo dhawow waa dhawahay ma sha Allah maanta mawduucina wuxuu noqday dumarka mise ragga yaa ka jiifa wadanka Soomaaliya yaa wax qowmi xagga waxa weeye wadaninimada laga hadlayaa maanta yaa noo wadani ah dad badan baa sheegtay waxay leeyihiin war ragga Soomaaliyeed baa lagu leeyahay ragga Soomaaliyeed waxay qaban waayeen baa lagu leeyahay laakiin rag kaligood waxba qabtaan dumarkan waxa loo baahan in xogtooda ka soo baxaan hadday dumarka jiiftaan ani waxaan aaminsanahay inay nabadda ka bilaabanayso dumarka nabadgelyada ka bilaabanayso dumarka ayna ku dhamaanayso dumarka ra'yigaaga horta waan isla eegi doonaa dhammaanba horta kulanti wacan wanaagsan baan leenahay dhageystayaasha iyo weliba daawadayaasha idaacadda Kali Radio qolada nagala socota Facebookana iyagana waxaan leenahay soo dhawaada iyo qolada kale ee iyaguna nagala socda qaybaha kale ee FM-ta iyo weliba telefoonadooda gacanta waxaan idin leenahay horta Ramadaan Kariim dhammaan horta doodan rag iyo dumarku kulli Ramadaanka ma fiicnan caliyo laakiin xilli tamar badan lahayo ayay dagaalkaas inaa soo qaado hadee sabar u beegsaday maanta waa tahay isleeda waa soonka lagu soo jilay aad iyo aad waayahay barnaamijka haddaan eegno horta wadanka Soomaaliya muddo 30 sano ku dhow ama waxba aan ka dhinayn ayuu burbursanaa aniga saan aaminsanahay kulley wixii burburiyay dee hadda isweydiin mayno waa laga dharagsan yahay haddii doodii markaa ka dhigtay adigu ragga ayaa markaas wax dhisaya dumarkana markaa kaalintoodii ayay gabeen saasaan u fahmay mawduuca aad iyo aad marka haddayba sidaa tahay horta qoraxda la yiri sacab laguma qarin karo dumarku meel kastay joogaan kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dibadiisa joogaba waxyaabaha ay qabteen aad iyo aad baa loo ogyahay waana halka keliya ee laga dhiman waayo baan aaminsanahay haddii dhibka raggu wado ay dumarkan dhinacooda ka geli lahaayeen kolley waxba may hagaageen saas waasaan aaminsanahay laakiin intan lagu nool yahay ama inta keliya lagu badbaaday waaba dumarkan kule waan gartay Kawsaray marka haddii aad adigu hayso cadaymo aad leedahay dumarku waxan iyo waxanay sameeyeen waa isla eegaynaa cadaymaha oo soo bandhigayaa dhageystayaashana waxaan leeyahay iyo weliba daawadayaasha waxoogaa raalliha la iga noqdo laba shaqaan isku hayaa inaan hadlo oo aan barnaamijka ka qayb qaato iyo inaan weliba dhinaca farsamadana ka qayb qaato marka haddaan marmar adi arki weydaan oo dhinaca kala wareego yaan dhib loo arkin halayla socdo maasha Allah Kawsaray horta maanta dhibaatooyinka ugu badan magaalada ka taaganta horta waa Muqdisho waa Xamar waa tahay Kawsar dad baa ina soo garaacayo marka insha Allah Kawsar ka qabanaysaa haddaynu gudubno xagga dumarka waxaan aaminsanahay dumarka maanta caruurta dhibaatooyin ku haya mise caruurta waxyaalaha beenta lagu aqrinayo mise caruurta niyadooda in la bedelo la doonayo guri bay ka soo baxaan xaafad bay leeyihiin hooyadood waxaa loo baahan yahay inay ka warqabto caruurtooda xagga aadayaan marka ma dhahaya aabooyinka ayagana qalad waxaan aaminsanahay horta dumarka ayaga badanka xaafadda u badan 100% ragga waxba kama oga caruurtooda laakiin waxaan aaminsanahay hooyooyinka hadday ka shaqeynayaan nabadgelyada wadanka dad caruurtan meel bay ka soo baxeen guri bay ka soo baxayaan xaafad bay u hooyanayaan god kama soo baxayaan Kawsaray ma garatay maanta adiga horta hooyo waa tahay dad baa wasab dib naga soo garaacayo
waata bisooda. السلام عليكم. السلام عليكم. والله برنامج كم ها عصب كوسو دو. هاد ما قاعد عليه. siyaasadii halaga noqdo laakiin waa weena dad qaladka waa dhinaca dumarkii baa loo gudbay waxaa leeyahay siyaasadda waxaa ka jiifa xagga dumarka waxaad ka aaminsantahay adigu aad baan ka runtii waa mawduuc aad muhiim u ah aniga aragti ahaan yaa ka jiifa marka la dhaho siyaasadda waddanka ama wax u qabashada waddankii yani ragii dumarka haye kolley yaa kaalintooda gabay waysaan u fahmay dabcan haye waa sax horto muddadii hadda waddanka burburka ahaa waxaan is dhihi karaa horto dhinaca arrimaha bulshada marka la fiiriyo waxaa lagu badbaaday waa un dumarka sax raggi waxay noqdeen wax un dagaal ogayaal iyo problemkan hadday siyaasad tahay hadday tahay qarbudaad kale hadday dagaal tahay waxa uu ku jiray waa raggi arrintii kale hadday reerihii iyo hadday aan laga urta waxbarashadoodii iyo masruufka nolosha kale waxaa la daala dhacay intaas waa hooyo soomaaliyeed haddii dowladna aan ka haysan wax taageera ah sax wax yani kaloo taageeraya in aysan jirin haddii abayaashii ay ku daysheen marka laakiin marka la fiiriyo dhanka siyaasadda waxaad moodaa in laga dafay kaalintaas in ayaga laga xoogay ma dhihi karno way gabeen laakiin si xoogaa looga marorsaday sax yani waxaa weye jaaniskoodiba laguma siin ayaga waxaa leeyahay waddankii burburkii dhibaatadii samata bixintii markii xoogaa waddanka soo hagaagay looma abaalgudin oo looma mahadcelin meesha ay munaayeen in la dhaho mahadsanidin waddankii intii uu dhibaatada burburka ku jirayna waa kaasaa reerihii iyo dadkii adinkaa waday waan gartay siyaasadana haddii waa kanaaga wax wada oo ragii hawsha iska watay haddana siyaasadda ay afduub ku haysto marka dumarka waxaan dhihi lahaa dhinaca siyaasadda aad bay u geesteen laakiin waxaa loogu fogay laguna nastay dhinaca arrimaha bulshada saaxib haddii aan kaasoo dhex galo su-aal aan ku weydiiyo maanta dadka waddanka dhibaatada ku haya mise qaraxyada sameynayo badankii waxay u badan yihin horta waa dhalinyaro ma garatay waa dhalinyaro oo bilaa shaqo ah oo aanan shaqaynayn maanta guriga horta aabihii maba jooga maanta wuxuu ku maqan yahay shaqo iyo meeshuu ku maqnaadaba hooyooyinkii waxaa looga baahnaa caruurtooda maanta iyo saaxiib la yihiin maanta xaggay aadeen kolleyba dadkaa duurka ku jira dhulka ma soo bixinoo hooyay leeyihiin haddii hooyooyin ka shaqaynayaan nabadgeliyada mise xagga siyaasadda inay dowladda ilaaliyaan waxaa loo baahnaa qof kastoo caruurtiisa ka maqan tahay mise dhalinyar ha noqoto mise 30 jir ha noqdo oo ka maqan reerka ka maqan inay soo cadeeyaan dhahaan wiilkayga imisa inta jiro aanan arag 3 bilood maynu ahayn waa tahay haddaan halkaa ra'yi idinku darsado waa run oo hooyo kasta ilmaheeda inay ka warhayso muhiim bay tahay waana arrin aada wanaagsan haddana ilaahay subxaana watacaala markuu dunida abuuray rag baa hoggaan looga dhigay waa inaad ogaato aadan iyo xaawo yaa la hor abuuray aadan soo maha laakiin marka waxa weeyaan hoggaanka dunidu waa rag diinteenaba markaad dib u eegto dee gabadha madaxweyne ama ogola dabcan maamulada kale meelaha kale ma ogiin ujeedadaasoo dhan xigmad baa ilaahay ka wadaa marka waxa weeyaan inagoo dhinac walba ka eegayna raggu waa hoggaanka koowaad dumarkuna hoggaankaasi hadduu khaldamo oo leexleexdo way ka daba leexleexanayaan walow aanay dumarka soomaaliyeed sidaa yeelin oo aanay ishubayn aanay qori qaadan aanay hogaamiye kooxeed noqon laakiin aanay noqonin hogaamiye diineed midnaba aanay noqon wax kasta ay ahaataba waxay iyagu ku hadheen guryihii iyo intii nool si u badbaadiyaan marka inay u shaqo tagaan oo ay dumarka inta ugu tirada badan maanta ee bannaan fadhida ama shaqo ilaa halka ugu hooseysa fadhida waa hooyo waa dumar waxay u ordayaan oo dhanna waa inay barbaariyaan qodobka hore ku laabto waxaa tiray markii nabi aadan marka la abuuray waxaa tiray markaa ka dambaa la abuuray xaabaa tiray laakiin waxaa ogaataa nabi aadan keligiis waxma qaban karin oo dumarka uu u baahday xaabo in loo sameeyo waa muhiim bay u ahayd
maanta waxaan kula yahay rag keligii wax ma qaban karo waa inay dumarkan waa inay garab istaagaan wax kastoo laga baahdo sababtoo ah maanta mucaaradka lagu sheegayo xaas baa gurigu joogto hooya gurigu joogto haddii ay la taliyaan mise wax ra'yi ku darsanay dhahaan hooyo waxaa iska daa ma garanaysaa waxaa loo baahnaa dad maanta hadda ani xaasigii taada maxaa soo qabo inaan waxaan jeclaan ufuliyan jeclahay markaan waxaa aaminsanaha dumarka inay xoog weyn ku leeyihiin adigo noloshaad horta ka sheekeynayso iyo xaqiiqda ka jirta soomaaliya waa labay kala tahay xaqiiqda soomaaliya ka jirta haddaad aad si fiican u dul istaagto waxaa lagu qaybsaday dhismaha dawladdu waa 4.5 waan gartay dumarku meel kama soo geli karaan marka horaaba ayaaba iska fogeeyey oo inaan albaabo ku yeelan loogu talagalay balaankaaba saa marka gabadh aan dhibicnidii xataa aan haysanin hadda mucaarad bay noqonaysaa dhibic haysan meel ay dadki intay la hadashay tira maya sidan ma aha maya waa in waxaa la sameeyo maba haysato booska haddaad soo celiseen baasha oo dhibcaha laga saaro oo miiskala isugu yimaado dumarku meel bay kasoo geli doonaan saaxiibkeena aan fasaxno si aan asxaabta kale iyagana uga qaban khadadka haye walaal maxaad waxa ugu dambeeya sheegaysa intaan ku fasaxeen hay ugu dambeeya يعني هو سيد كوثر هذا شكتي إن على سياسة وكل واحد مدة اللي هي فورم شاف مركل له إدور بمركل له ضد كان صدق وحكي سنة ساعة رجع ضد معرضي بعدين بيحكوا بين كلام وعلى يدي تمر هذا ضد كانوا نحن بعد قلت هاي إسكجوك ده الكاس وانقطع عادة قبل عليه وقت كده ويسوي هاي يعني ضد كانوا حقنا هاي كسر توصل عليه يعني هاي بيقول تكبر إلى سنين nolosha kale adduunyada culeyskeedana waa saaran yahay oo lagu teeriyay intooda badan markii aragto wiilkeeda dhibaato kasta uu geysanayo haddana wixii yani u qarinayso hooyo mar aad iyo aad marka xaaladii aabaha maqan aabaha mar walba wuxuu lahaa qawaamada iyo hogaanka isaga iyo reerka inuu u taliyo ilmaha yararka iyo wax walbana uu canaan iyo xurug ku leh laakiin hooyo mar walba yani awood واتهاي برنامجka ku sii soconayna saaxiibkeen aad buu mahadsan yahay khadka ka go'ay asxaabta kalena iyagana u gudbaynaa cali horta sheekada maanta kulli guul halkan kala kicimaysid sidaan ogahay waxaan rajaynayaa dhageystayaal badan oo iyaguna saaxiib al-aqliya oo xaqiiqdan iyo nolosha Soomaalida maanta ka jirta ogna inaanay marnaba aanay adiga doodaada aanay hadda kowsanay su-aasheeda waxaa weeye dumarka adiga maxaad ka aaminsan inay ka jiifin waddanka ee dumarka wax u hayaan anigu waxaan aaminsanahay inay dumarku yihiin inta kaliya lagu badbaaday haddii aanay weliba dumarka Soomaaliyeed ahaan lahayn oo ay dumar kale ahaan lahaayeen wax kale isbedeli lahaa waan gartay marka waxaan leeyahay waa dumar dulqaad badan waa dumar karti badan waa dumar aan ka daba laalaadinin waxyaabaha dhacaya oo iyagu dantii ilmihii iyo gurigii un si toos u aaday waxaad arkaysaa waxyaabaha qaarkood dadka ugu tirada badan ee meelaha qaraxyada caruur iyo dumarka ugu badan raggii intii siyaasi noqotayna dee meelaaba u oodan oo iyaga maba loo geli karo oo qaraxna ma gaari karo dhibna ma gaari karto laakiin haddaad eegto kaalinta cidda maanta kaalinteedii gabtay oo isdilaya hub keenaya wiilasha yaryarkaa fikrad kale iyo afkaar aaminsiinaya hadhowna inay isqarxiyaan isdilaan sabab keenaya ragga kale u gacan haadinaya tahriibinaya magafaha ah waddanka ka saaraya hadhowto iibinaya oo wadnaha iyo qalbiga si loogala saaro ka shaqeyna waxaa markaad isku wada keento waa rag gartay kuwa ajnabiya marka xuduudda laga gudbo soo galaya laakiin inta kale xuduuddii Soomaaliya marka lagu jiro dee waxaasoo dhan sameynaya weli waxa ay dhiseen oo ay inta ay isu yimaadeen wada caqli ma laha ma odhan karno laakiin Soomaali caqliga ka dhamaaday ma odhan adigu waxaad aaminsan tahay boqolkiiba boqol dumarka kaalintoodii iyo ka badan toodiiba ma waxaa la dumarka oo dhan ba inay wada wanaagsan yihiin baad aaminsan tahay adigu boqolkiiba boqol maadaama tiri wanaagu uu kala baxaya haddaad hadalka u dhigto laakiin marka aan ka hadlayno dhinaca siyaasadda Soomaalidu kaalintay ka galeen iyo dhaqaalaha nolosha bulshada boqolkiiba 200 baan siinaya waan ku gatay taa waxaan aaminsanahay maadaama tiri rag xun way jiraan rag wanaagsan way jiraan dumar xunna way jiraan dumar wanaagsan way jiraan taa halkeeda ku dhaaf maanta waxaa dumarka xun caruurtooda hadday ka dhaadhiciyaan waxay ayaga aaminsan yihiin iyo ficilka ku jira waxaan aaminsanahay inay caruurtaan xumaanayso horta hooyo Soomaaliyeed inta hub soo iibso ma odhanayso qoriga qaad qabiilada usoo dagaaltan kaaha sugin waxa inta xataa meelaha ay isugu yimaadaan raggu
dumarku hadday isu yimaadaan inay waxyaabo kale iyo xan iyo sheeke iyo entertainment wax kale ku sheekeeyaan laakiin hadday rag isu yimaadaan qabiilkiinaan beri dilnay qabiiladeeda ka adkaatay waxyaabo noocaasa xataa wiilka yar ee u adeegaya ma ka agdhowna uu fikirkii la aaminayo wixii aabiye aaminsanaa adeerkii ila adeerkii aaminsanaa ma fahamtay haddana bahashiiba intaa la ceebeeyey ayaa la yidhi siyaasadii dalka iyo nolosheenii oo dhan ha lagu bays garayo dhibcahaas oo sida loo kala badan yahay dadka Soomaaliyeed qaar baa xataa dhibicda soo gaadhay iyagu wadanka male miyaa قبيلة بدل ما تشوفون وصح يا وحن كدنبي ما دمر بايرة عن سمينا وحن مايا لكن أقول ما أنت هيك عندك كذا عيو حقو جينا يا وساش حقو جينا حقو جينا الحاجات دي سوق جينا ويدي جو جينا ميدا كل شيء هذا وحات الدمر كما دام بقولك بقول 100% ونكسين هين ما دولار سبعة كسر شقيه أو عند حتى أو عند حركة برام بردا وأبو إكتي وحي كبلاوان إيش محي ترى بسن وحلو بلاومي رج بركة مره ما أنت أنا محن أمين سنة هاي ده نم بركة مره مايا توتالي هذا كاسق على ضمن فهمتي هذا حلا هاي ده كنا دعوة هاي صح بسن كوحان لقو بلابين وين وحي أنا لقو بلابين أردن بركة مره نم بركة مره نم معها وحي أنا بسنك لقو بلابين إرجع سومالي عليه ما دام الحكم إن بدن أنا قاعد بدي موته ما حاجة إسكود دينا فهمت إيه بسود ودعي عدين ترى منصور هذين دون عليه حقي وان كان يا إن شاء الله طبعا أنا عن ويرنا ما تقصيه أنت كاف سومالي بدن هذا وحالة برامبوركا ضد لقو ما حيسي قبل لقو ما حيسي بلاد منطقة كاس وبوصرف وارنتا لكن قبل ما كان حيسين ولا أمانة هل الدليل الله ما أربعة ضد ما كان يكسب في عين قبيل كان سدا وناكسيه ليه صح وضد عانا كصوب هذا ياخذ مركز هي وحويان حدي بيعبته أو بيصنع عبته وأوقتين كدليسو صح حتى بيعته وح في رميل إنه فقط عبتنا وأوقت في وحكوا طريقته مركز وإسلام بيه برامبر كان وإسلام هذا الشيء هذا كان أمان أوي صح وبوصرف وي marka iyagu waxay leeyihiin hadii ay qabiil xataa hadal qaadaan wanaagiisa sharaftiisa maxay kartidiisa hantidiisa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa waxaasay ka hadlayaan laakiin kama hadlayaan inta ay dadileen inta ay dawladda ku leeyihiin siyaasiyiin waxa kama hadlayaan laakiin waxaad ogaataa waxa weeye boqorada sida ah dhageyso boqorada sida ah waxa weeye geesiyaashii dadka ka dhashay baa leeyahay amaan ha ahaato ما أنت هذا عروس مقطعة هي إن قبيلك لا حيسي وكسر جدا قبيلك لا حيسي وانك لقيسو أنا ما حن آمن سنة هاي ما أنت مركي قبيلك لقاها الله إن أنك يجوا تفعل باقلا يو برامبر بيسوس سمين سا وحيل هذا هاي صدامة يكون ونكسب يكون هذا هاي وحيل كل هذا هاي قبيلك ما قبيلك يكفي عن أنا بقرها لنا هاي أذيك وحيل قولي هاي صدامة الصوماليات بقولي هاي وكم عدة كينة صدامة الصومالية وحول بقرة الصومالية أنا وحن آمن سنة هاي ضد كان هذا الصحة لو شقينا يوم رجعنا ويقضيهن الله صح وبالعكسنت هاي دمر كانوا يقضيه لما ده كانوا دمر كوحاوية لما ده كانوا أنت ندعي سياسة عليه وقصوا كلا فرحان ملايين وانقلت هذا برامج كي شقو كي هو ما سياسة تاوي ما نزا سياسة تاوي ما نزا إن ده ما تو واحد كستوس كود الحرم هاي دمر كوحيري أي مكا يجو مكا أروس كوما موسى أو أمانة أو شرفة أي شيء كذا كسر نقطة صح مركا تاسنا وحوي وحط على بدلي وحنا نقن صح ولقينا صومالي وحوي ما هو حسب واحد ضلك يدوني ذا بقى عصب منا معها وحن ونقن صومالي إلا وقت جي أي صومالي ولا ما بعديها دقني ووحي سوس من جرين وحسنا ودقن كي إن لقتها كنا مو نحسن أو دقن حن معها دقن كحن لقتها هو مهم صح لكن دقن ونحسن أو قف أمانة أنا هو تقريبا ما كشخصية صح واد أون دي رجال كوسري مدة هذا لبعضنا عندنا مكو معايا صح الصومالي حضرت لنا قبيلة الشيغان صح قبيلة الصومالي أردن ويسو الشيغان صح هو كستانين في عين بالشيغان وحن بقى أنا بقول لها عليه بالعكس هلا تقى دمر كاو حلقة ويديو هلا راو dadka kuwa brambray inta la wada amaano siyaasiyiinta iyo dadka wax isku dirayana arintooda brambra loo bedelo falayagana lagu wacyi geliyo ayaan rahaa dhinaca farsamada noo eegaya koosta wayna soo laabanaysaa iyar
laakiin aniga waxaan aaminsanahay markay timaado xagga siyaasadda hadday noqoto marka aan brandburka waxaan usoo dhexgeliyay waxay ahayd maanta dad siyaasiyiin ku jira ayaa jira oo loo brandburayo oo dad lacag siinaya in loo brandburo in la xayeysiiyo in laga hadlo ayagu marka waxaan aaminsanahay dad waxaa jira oo arkayo taa ayagana ficil daraadeeda ayagana qof kale ku hayreynayo intaan ku weydiiyo xagga brandburka hadday noqotay xaggan kuleeyahay gabayga waa hal raggana gabay baa loo daayay dumarkana waxaa loo daayay brandbur gabayga weliga ma arkaysa qabiil lagu xayeysiinayo qabiil Suudaan looga dhigayo bismillah cali wax badan ma ogid wax badan hataa soo hadal qaadi kara asaga halkaan kaga hadlo waayo wax badan baan ogahay gabay adiga ogtahay oo lagu xayeysiinayo Soomaali wixii isku diri jiray marka dib u laabato 50 sano ka hor waqtiyadii wixii dadkuba isku dili jiray hal gabay buu ahaa gabay buu nintirinaya mid buu soo jawaabaya gacan ka hadal baa bisha isku bedelaysa marka kaas isaga ceebtiisa waa la ogyahay ma ilaa gabayal isku beegsaday marka uu soo noqon weli laba reer oo brand isku dilay ama laba qoys lama hayo kolley way jiraan anaga wax baro ma hayno waxaan joognaa Mareykanka kolley dadka ina daawanaya Facebook meesha laga brand Mareykanka ugu badan ba habeen kasta roosida waa aragtay waa tahay sheekada aan la wadaago iyadana waxa ay la tahay dadweyne badan ba dabcan inaad akhridaa muhiima waxyaabaha ka hadlayaan taas dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda Kaalay Somali American Radio aniga ah Prince Ali Wadani iyo aniga Kawsar Maxamed Cabdullaahi maanta barnaamijkeena maxaa cusub qodobka wuxuu ahaa mise mawduuca wuxuu ahaa dumarka ama ragga yaa ka jiifa wadanka waa tahay haddii waa cadaato intii ka jiifta عدة كجيبت كل يوم دوت فرن عد دمار سبب جبت قف كستوه أنا سني هاي قف كوري نصوغ رعي وحنا هو الصح دمر كوينة كجيفان وين وحنويه جاي. وتعالي إن هدي لنا على جسر لنا على جحد له وحي إلا وضع نستو وحلا وذا ليه هو يعني. لكن هدي يقول إيد ودرج لنا عيلي وحي يجو كل جود ليه ذا كان يعني. صح. ما كباش اللي بعجليين. هيه. ما كعدو ما كبا أورمار اللي يجا بكسارة ماشى. صح. ما كهدي حاجة قويسس كإيه هاس لوس ودقو. سياسة طبعا لقى سود الجو. هيه. عندو ما كوارن تاع كلام بدل بكلي. صح. ووعي يجلين كرام. أباها يخشين كرام ويل كين دشين يخشين كرتا. هدي والله مقلة يوي. صح. ولا تشوجا بقى اختيار اللي اسمه مقلة كرام. صح. ويل كلا أو استجنا مركا أفكار قلدان لقى على أنا يخشين كرتا. صح. لكن مركا مهم كيكسون نقطة. وجانك كوباد الدنيا ورقة. صح. دين عيول لحظان. أي تود مكون أول لحظة. واقفين. مركا اللي اسمه أذيان. قولي. رجع وحن كو وعي قلنا. صح. أنا قو نمبر ترى بدن أو رجع مرة والبلا هذلنا. أما فيسبوك أنا بلا حريقان مرة بيها قيبيه سكلاء. صح. وحن كعد سنينا ولي ببلها رمضان. أيه. إن أي حق ترى إسكتاية. صح. حق ترى ويبغون تحي. وطن كنا ويكبرتي. صح. وطن إنه وصل دولي ما هو حي إنك حيستا. صح. أما وطن كنا نبكي كتاجر. صح. إنك إحدى نقويا. أديان. مركا برنامج كلا حتى كورن كهذا اللي نوي يشيلين أو يقولون مركا كهذا اللي وضمنا كلام حين جاي من سين. واقفين. وابد أرك تعبا إن حين جاي من سين وطن كنا بحث عاي. أي والله تيجي. دقال بشكل قاري صح. صح. هلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة we have disconnection. واحد مركا جودهني هرت عدة العيف إنك قدرتي أما حتى أقويهن كيباب كسحبان سلاحي أنا مركا الشركة ضمر يربع عن كصوتنا صح وعن كهذا الماء الشركة قنتي إذا كهذا الماء صح وحويا رجع أنت سياستهم ورك كجرو وقف العقلية لعنا كربا العقل دوني مركا حقيقة ولا أنا برنامج كهذا صح لكن أنت أنا العقل قليل العقل كربين يا أقويهن هاي سياسيين تكلا هاي تدك وحبرتي ولما ودين كي لا يرضي تدك نبكو مرة بكو دعية وش كو دعيسي هي وواحد مودا وحكا دات سنان باجرتا صح dadku markuu dhibka ka dhargo laba noqda inuu ka daalo oo xal waayo isbiibo صح oo noloshiisa dhan sida ku dhamaato gartay iyo inuu kuleylka badan uu kar ku keeno oo ka istaagaan dabadna ay wixii dhinac isaga tuuraan labadaan bay noqotaa kawsar marka imika maadaama de 30 sano wali lagu soo jiray صح waxaad moodaa in la iskaga daalay oo cid u maqan ama ceel qodanba uu jirin oo la iska dhigay meel صح
dadkeena intii soo hadhay inta siyaasadda ku jirtay hardamaysa ma ogin inta kalena daawadayaal ka noqonay garoonka marka kubadda la ciyaarayo dad iyagu ma ciyaaraya waxbay daawanayaan dadna waa kuwii kubadda yar dhex taalay marka siyaasiyiintu kubadda yarad baa dhex taala xaggan uu celiyay xaggan ka soo celiyo intii kalena waa masraxi waa loo socodinaya kawsaray waa sax horta xagga kubadda kusoo qaadada kubadda aniga aad baan u garanay waa professional ahaan baan usoo ciyaaray mar laakiin dhinac Soomaali markaa kubadda u eegto gormo waxaa jira hadda sidar iyo ku yaala meelaha aan garanaysaa dad baa siyaasadii weeyaan ka soo qabo dad baa isoo beegsaday oo isoo balansaday oo isoo diyaariyay maanta inay galaan muxuu ahaa inay isla ciyaaraanba dad kale maana waxay ku leeyihiin inaan ciyaarno weeyaan waxaan ka wadaa dadkan ku leeyahay dad waxay siyaasaddan ku jiraan waddanka dhib ku haya oo doonay dadka siyaasiyiinta inay dhib u geystaan waxaa loo baahan mucaaradka dhahaa horta haddaan mucaaradka dib u eegno mucaaradka xad waxa ku imaado su'aasha mucaaradku wuxuu fiican yahay sana aad iyo aad u fiican yahay mucaaradada kala ah mucaaradku wuxuu u fiican yahay wuxuu saxayaa sax isagu banaanka ka jooga kubadda moogta aad iyo aad marka waxa gudaha ka socda ayuu saxayaa sax marka anu haddii uu sidii loogu talagalay ay wax u qabtaan waa arrin aada muhiim u ah mucaaradkana anigu waxaan leeyahay bal mucaaradnimadu ha noqoto mid wadaniyada sax laakiin haddaad mucaarado oo qofka iiga qaad kursiga ay noqoto ha mucaaradada ma aqaan absolutely maasha allah halkan nagala socotaan waa idaacadda Kaalin Somali American Radio anigoo ah Prince Ali Wadani farqiga waxaa fadhisa Kawsar Cabdullaahi barnaamijkeena maxaa cusub dumarka ama ragga yaa waddanka ka jifo سنة من سنة إن شاء الله هذا جوا لكن وحنا من سنة هاي أنا جا حد يجوا حن تاجر سنة هاي إن الدمر كجي فان إن شاء الله أي ونكسنتها إن أوصل فرستان متى دي سؤال دي بكوي دي أنا جا ما دام الدمر كي أنا جا الله يركوديات هاي سؤال شيء دوار وحاول يعني ما أنت وحنا كهذا عدد كان صباح معارض كه إن يقول لك صباح إلا جنب قيني هاي marka laga shaqeeyo xagga nabadda adna waxaa kale dadkan caruurtoodii bay u shaqeynayaan inay ma joogaan ragga lagama had dumarkan ka hadlaya dumarkii ma joogaan haye qofka banaanka fadhiya oo roob ku da'o oo qoraxda ku dhacdo warba ma hayaan caruurta wax iibinaysa ee ilmihii rabtay inay maanta cuntada cuni lahaayeen ka fikiraysa hooyada wey bilcagsi raggii mee way ka maqayn haddii marka hooyadu ay nasato oo guriga kusoo laabato oo cuntadii dibadda looga keeno markaasay arki kartaa xataa wixii khaldan oo u sheegi kartaa oo kartaa hey qaabka siyaasadda u wadaan waa qalad qaabka mucaaradada u wadaan waa qalad qaabka dalkeena dunida kale ee ama wadamada kale usoo hungurayna waa qalad waa inaan waxay samayno hooyadu markaasay tala keeni kartaa laakiin hooyo cuntadii looga tagay ilmaha inay la daaraadhacdo oo masaariiftii hooyo qurbaha joogta ka soo qaad raggii waa maqan yahay inagu ma odhan karno halkaasa lagu maqan yahay oo ma naqaan laakiin hooyadii qofka daykeerka geynaya qofka isbitaal haduu balan leeyahay qofka iskuul ka soo qaadaya qofka barafka aad aragtay marna sii wada marna ee 7 maalmoodba sii sida ilmaha waa hooyada marka hooyadaas iyadii baa nolosheedii ku mashquulsan sidee u ogaan kartaa ninkeedii ay u toosin kartaa oo u sheegi kartaa haddii tusaale yar la soo qaato ninka gurigiisii dayacay afar caruur u dhalay dayacay siyaasad Soomaaliyeed wax ma ka keeni kara anu ma yaan aaminsanahay dagaalkeena fogeyn ma rabo laakiin wixii muuqday baa sidaas haddii haddaba hooyada rarka laga qaado adiga halkaa tabaysa oo garanaya waxaad leedahay wiilkii iyo aabihii iyo walaalkiiba iyadii usoo hooyanayaan markaa may wax u sheegto marka ay maskax ahaan degan tahay ee hooyo wiilkii iyo walaalkii aabihii intay soo shaqeyn masaariif siiyeen oo gurigii ku nasanaysa ilmihii taageeraynayso markaa waxay u fikir kartaa okay maxaa kalen qabtaa indhaheedu way furmayaan laakiin ayadoo markay caawa seexanayso waxay diyaarsanaysaa kabahay subaxa 6 subaxnimo xidhan lahayd caawa sii diyaarinaysaa because ma hayso caawsa ilmaha markay dheekeerada wada dhigto hooyadii kale wadankii joogtayna ay ilmaha madrasadaha iyo malcamadaha geyso ayay waxay tagaysaa suuq yar wax ku iibin jirtay hooyadan kale ay idna qurbaha joogtaana marka ay ilmihii iskuuladii iyo wixii kala geyso kadib bay shaqadeedii tagaysaa waan gartay absolutely maalin walba waan sameeyaa gabdhaha kale Soomaaliyeedna way sameeyaan marka iskuulada kala geeyo kadib baan anigu shaqadeeda tagaa marka waxa weeyaan hal minute haddaad absaanto aday kaa go'antay saana u dhicin waxay ku dhow yihiin dumarkii Soomaaliyeed kabaha ku seexdaan sararta dhinaceeda waxay ku diyaarinayaan kuwa ilmaha subax loo xidhay kuwa iyagu xidhanayeen wixii oo dhan subax marka la kaco askartii loo afuufay seerigaad muddo hala kala yaacay marka waan rajaynaa hooyooyin badan oo qurbaha joogaan in arrinta ay la qabaan hadii Facebook ay nagula jiraan waxaan rabaa idinkuna bal wixii xaqiiqada ogtiin soo sheega ma sha Allah marka dumarka halkaas ay wax ku hayaan hooyada marka 8 hours soo shaqaysay ama part time 4 hours
10 saacadood oo kamid oo kalena ilmihii gelisay صح hurdadeeduna 5 saacadood ama 6 saacadood waan hubaa hooyo saacadaheeda ugu badan ee ugu fiican waa 6 saacadood ee seexato صح gabadhaasi maxay siyaasad ka tar kartaa yey wuxuu sheegi kartaa wax way mas'uuliyadii dhameyd ee guriga qaabishay صح maciishadii guriga haysa marka rag yahow laba khaldan baa isku darteen marka xaqiiq loo yimaado waan gartay labada khaldan waxay tahay idinkuma heshiinaysaa صح oo ma odhanaysaan isdil loo kala adkaan weynayay صح nimayo maxaa xala intay isu timaadaan waan gartay dhibcahan iyo waxaa maanta dhulka la dhigo صح bal lasoo kala adkaan waaye aynu wax ku bedelno صح oo xataa ay madaxweyneba yaa loo sharaxina Haye. odayaasha halka iska jooga ee odaygadan oday dhaqameed mid kamid ah midkuu rabaha noqdo صح oo aan waxba loo eegin صح hala warbalna maamul intaan موديل دمك كهامية maya هي bal qofow imaam ka هذا soo قف qaad ده قف لا دور كسو bal هي imaam masjid haystaba ka soo qaad هي la yidhaha hey imaamka xaafadanow Yeah. bal adigu maanta wadankii noo qabo annagana kula shaqayno حاجة دانيرتا maya just example wey كوسري macnaha waa in wixii mar un laga farxasho هذه marka labada qodob ee muhiimkan ka hadii waxay tahay Mhm. horta marun ha heshiiyaan صح marka hooyada Soomaaliyeed waxay heli kartaa xataa wadanka dibadda ay kaga maqan tahay meel ay u celiso carruurtii meel ay dhaqankooda ku barto meel ay ku barbaariso meel ay dareemaan inay iyagu leeyihiin halkan waxa la yiraahdaa identity crisis waxa la yiraahdaa ku dhacay carruurta صح wadanka صح marka ma yaqaanaan halkay ka yimaadeen صح wadan ay ka yimaadeen oo ay arkeen weligood ma jirto wadankanna waxa loo sheegaa inaanay iyagu lahayn هذه كوسري ayagu carruurtii ayaa luntayba صح eedana waxaa la odhanayaa un hablaayo carruurtii way korin kari weyday way hayn kari maxay qabataa waa mise qof ay noqotaa وارن marka halkaa waxaa cad cidda kaalinteeda xaqiiqada aan gabtay صح. marka hadda kaftanka ka nimaadno صح waxa kale oo cad dumarku haddii ay markaa helaan cid caawisa oo nolosha guriga dhinacun xataa kala qabata كلا قبطة carruurtan qurbaha joogtaa xataa ugu yaraan badbaadi lahayd صح markay arkaan aabihii oo guriga ka toosaya ilmahaasi dabcan cabsi buu ka qaba aabihii صح khataro badan oo ku dhaco markay hooyo keliya tahay kuma dhacaya markan kale aabuhu wuxuu ogaanaya masaajidka inuu tago inuu soo tukado inuu soo noqdo saacadihiisoo dhan haddii meel la tagaya ciyaar wuu raacaya wixii oo dhan aabaha gacanta ku haya marka qoysaska aadka u tirada yar ee badbaaday waa qoysaska dhisan ee aabihii hooyaday wada joogaan طبعا inta kale ay noqotay صح mas-uuliyad in laga cararayo waxaa laga gaadhay صح maaha inaan ragga xumaynayo laakiin dhacdooyinkan qurbaha ku arkaan sheegay صح dad badan oo rag iyo dumarban ay ka garaabayaan صح ragku odhanaya gabadha waa inaad dawladda hoos tagto oo aad dhaqaale ka raadiso صح haddii kale waan kala tegaynaa صح waxaasoo dhan waa mas-uuliyadka carar مسؤول تعال marka anigu xanuunka raggii ku dhacay ee mas-uuliyadka cararka ama garan karo ciil iyo cadhana ma ahan laakiin waxa jira way xaqiiqa waa wax uun aan rabno inaan toosino أي كوسري wax waa inay baraarugaan oo ay صح. mas-uuliyaddooda kusoo noqdaan أي waxay wax ka taraysaa wixii hore lumay waaba lumay صح laakiin waxa soo socday wax ka taraysaa horta kowsay in isdhegeyso wanaagsan tahay ma garatay qof kasta cawaashidiisa in laga qaado wax meel loo dhigo loo qabto ani waxaan ku leeyahay dumarka waxay uga jifaan haddaba ad ii sheegtay maadaama howlo badan ay ku furan yihiin raggii ay xogtooda kasoo bixi lahayeen qoyska wuxuu ku dhisan yahay waa hooyo aabo maanta haddii hooyadan carruurtan koriso hal maskaxdii baa korisay hal maskax buu lahanayaa laakiin markii hooyadii aabahii wada koriyaan laba dhinac waxay ka arkayaan xaggii dhinaca ragga iyo dhinaca dumarkaba maanta waxaan ka hadlaya waxaa weeyaan aan kuleeyahay dumarka way ka jifanaan ee aaminsanahay waxay ahayd in dumarka ay shaqo qabtaan shaqadooda soo ah carruurtooda inay aaminsiiyaan maanta hadduu qof xun yahay inay walaalihooda iyo aabahooda inayna xumayn haddii xagga dhalinyartan u eegna qofka meesha soo qoray wuxuu dhahay marka wuxuu dhahay inan raadinayso waxay kugu xiraysaa inaad lacag haysato lacagta adigoo haysan oo aad tahay qof oo ka jajaban tahay oonan maanta shilinba haysan laakiin addamaciina kugu jiro waxay kugu qasbaysaa inaad si xalaana ku hesho lacagtaa mise si qaldo inaad ku keensato haddaan isku dayno jawaabtaas horta dhaqaaluhu waa noloshii صح taasi waa lama taabtaan هي gabadhan haddii aad xataa soo guursato maxaad ku qoydanaysaa weyaan hadhow maa u ordaya ma noqonayso صح wax weeyaan mas-uuliyadda haddaad qaadayso
gabadh islaameed intaad caruur ku rato ood kaga tagto waa waxa tirada badan keena aad iyo aad ee guryuhu dumayaan waxa way col hortii Soomaalida waxay tiraa hub samayso ama waxay tiraa daadku intuu kusoo gelin ayaa iska moosa ama la samaystaa meel uu kaaga leexdo marka intaan damca guur ku gelin wiil yahow shaqee wax soo saar hadduu shaqo waa la hayaa absolutely shaqo ma jirto African ka hadlana African shaqo ma jirto horta ay sheegay laakiin waxa raga jirta marka runka hadasho tusaale cad baan ku siinaya markaynu Mareykan joogno ama qurbaha kala joogno qashinkeenu qornaa musqulaheenu dhaqnaa baabuurteenu dhaqnaa wax kasta oo shaqo ah dadka waaweyn baynu taagaraynaa wax kasta aynu qabanaa marka wiilka Soomaaliyeed hadduu ku qanacsan yahay 40 guri ee gurigiisa ku dhagan inuu subaxa qashinka ka qaado eeg oo qoys kasta 1,000 shilin ka qaado 40,000 oo shilin baa soo galay xaaskiisana wuu kafeyn karaa laakiin muxuu taa u diiday waxa weeyaan inantaan ku soo raaceen buu leeyahay shaqo waay hadaba horane waxa ugu yar weeyaan waa halkii ugu hooseysay uguna yaray waxa jiro kale waxbuu bartay wadankeena waxa ka maqan horta dadkan qurbaha jooga wadankii intay tagaan inay wacyigelin badan sameeyaan ma horta aad u jeclaan lahaa waayo nolosha dadkan qurbaha jooga ku nool yihiin iyo nolosha Afrika looga nool aad bay u kala duwan tahay Afrika sareysa nolosha Afrika waxa la rabaa in lacag inta lagu soo diro aad cunto iska saxato taasi ma shaqaynayso qofkan adigu lacagta ka sugaysa musqulu soo dhaqay adu maxaad u dhaqalaada هذا وصح لكن dadku ma aha baylodo bay diyaarada ma kicino may engineer ma yihiin صح dhaqaatiir ma yihiin wax way wadankii wacyi waxba inta ku soo bartay way yarda hada kowsaray dadka qurbaha jooga waqti looma helin ba wixii la kabo dadka qurbaha jooga waa dadka dhibaatada ku haya wadanka adigu anu waxa la yahay maadaama biilal diraan صح biil qon ibda ha maadaama biil la diro imka aniga hadii biil la iga soo diro Afrika ama Asia ama هذا الشقة بواه ماشي دون طبعا هي there's no way شقة ما شيء ها مش شقة تجي صح marka waxa qofkii hadii la fiir garayo la dhan noloshaada masaarifti kiradii waa ka هي weligii ma baxay ma jaarkiisu ku mashquul ayaa ha marka waa ka wuxuu damcayaaba gabdhaha kale lagu soo daalay inuu lacag la'aan iyo dhaqaale la'aan ku guursado taasina ma shaqaynayso marka almuhim waxa leeyahay yaa laga xarabo shaqada laakiin shaqooyinka waxa loo baahan yahay waxa ogaataa hadii ay wiilasha Soomaaliyeed bartaan chef هي cunto karin oo maqaayad ay leeyihiin furtaan hadana xataa dhaqaale ku furtaan haysan ay lacagahan loo dirayo kale yiraahdaan bal anaga farqabsin hal mar loo soo diro maqaayad ku furan waa la sameyn karaa laakiin kowsaray ayaga dhexdooda haday sameeyaan horta siyaad baraal ah naxariista madaxweynihii Soomaaliya wax iska wax qabsanaya dadka aad u baray lagama faa'iideysanin wax way hadii xataa meelaha duma ee hadda wadanka gudihiisa qof uu biyaha keeno qof wax keeno waxuma la dhisi karaya hadii xataa meelaha isbitaalada ah la yiraahdo dhaqaatiirtii aqoonteeda wax baratay saacad tabaruc oo in isbitaal hebel tagto oo lacag la'aan oo inta 10 qof lagu diyaariyay aad maanta la kulanto lacag la'aan wax badan bay tar lahayd hooyo dhakhtar u tagay weyda lacag la'aan baa joogta marka haduu tago ajarun baa loo qoraya ma hayno khasaaray inuu lacag lumiyana ma aha wiilka ardayga ee jaamacadda maanta dhigta waxa jira caruur guryahooda joogta oo lacagtii iskuulka bixin kara weyda hadduu u tago uu yiraahdo 10 guri inta isu yimaadaan aniga wax idin baraya uu dhex fadhiisto waxba ma lumin miyo khasaaray muu khasaaray ilmihii iskuulka intuu u lugeeyo maanta dhan lacag laga bixin lahaana uu badbaadiyay marka dadkeenu waxaan ku dhiirigelin lahaa kuwa qurba jooga iyo kuwa qolqol joogaba horta dhexdooda si loo kala faa'iido ha bartaan tusaale aniga iyo cali halkan aan joognaa maanta labadeena ugu tusaale ugu dhowga ah dadkeena u shaqaynayna kuwa la hadlayna gudaha jooga iyo kuwa dibadda inagala socdaba tabaruc baynu ugu shaqaynayna miyaad diiday taas xaq ma tahay afar saacadood ama 5 saacadood ka mid ah maalin kasta inuu gelina marka waxa weeyaan qof walba wixii aad baratay iyo mihnadii Ilaahay adiga ku baray wiil kale inala joogaysna cameraman ma arkaysa Abdiwali basna dhinaca kala fadhiya Abdiwali wax lacag u qaadanaya ma leh 5 hours baa ka fadhiya marka dadkeena waxa rabaa in qof walba wixii uu bartay dadka ku celiyo inagu de team media bartay baynu nahay waynaga ku celinayna marka dhaqaatiirta waxa leeyahay 10 dhakhtar professional waxyaabo kala duwan bartay isbitaalada ma aha booqasho sameeyo guriyaha dadka ugu taga imsa hooyo jiran oo wax lagu soo qaadaysan
imsaa qof u baahan cirbad yar dhiig joojin xataa ayaa ugu yar صح annagana soo bushkaray waxaa tirahdaan dawooyin soo dira war soo dirayna صح albaabadaan garaacayna صح صح أي كوثر أي marka waxa wey أي. dadku horta ha bartaan shaqa la-aanta ayaa waxaan erey ii geysay صح waa uguma talagelin صح صح waana soomaaliya energy afghanistan raba صح waqtigina way naga soo dhamaaday marka آه qofka ugu dambeeya fariintiisa akhri barnaamijkan soo afmeerna مقفول ضبي وحصو قرية إنه صح إن شقين لا سمي صح لكن حاجة وين حاجة دولة كتماده waayo wuxuu ku leeyahay qof kasta oo shirkad la imaado dadkiisay heerkiisu shaqada siinaya waxa ficilkan ugu abuuray waxaa weeye maanta anigoo shaqada u qalma mise anigoo tacliinteeda hayo ayaa la siinaya qof aanan soo baran waxaana keenaya ku leeyahay waa qabiilka waana sax dowladdu waxay u baahan tahay sharciyo qof kasta u samayso sababtoo maanta qofkan shirkada samaynayo hadduuna qofkan garanayo si uu ka aamin ma hayo laakiin marka sharciga loo sameeyo waxaa weeyaan waa la aamini karaa waayahay waxaa jira laba wax waxaa la yidhaahdo waqtiga dhow iyo waqtiga fog صح waqtiga dhow waxa weeye waxa hadda aad ku dhex jirtaan dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex jirto صح kambanigaad maanta adoo caliya geysana qaraabadaada geyso waxaad is leedahay bal at least waxa noqdaan aniga iyagana ma la yaabayo صح oo nolosha wacyiga halkaa taagan صح waqtiga fog xilli dawladdu ay dhibcaha ka baxdo ايه oo xisbiya la qaato ايه oo wax la dhiso oo wax la wada leeyahay la dhiso صح waa waqti fog marka ha u fadhiisanoo gacmaha ha u laabanin صح inta dawladdu ay hagaagayso horta hagaaga bilow adigu صح gurigaaga ka bilow صح aqoontiiyo tacliintaad baratay maaha inuu isagu keligii in loogu shaqeeyo ay tahay haddaad baayac mushtar baratay hooyooyin soomaaliyeed baa jira ganacsiyo yaryar haysta u tag meelahay fadhiyaan la hagaaji oo ka caawo bookkeepinka iyo sida lacagaha loo kala jaro sida loo xisaabiyo صح waxaa laga yaabaa 10 hooyo oo aad businesskoodii yaraa la maamushay oo aad u sadgaraysay intay khasaareen intay faa'iideen meelaha kale ganacsigooda ku ballaarin karaan ee wixii ka heli karaan haddii aad baratay matalan sida loola shaqeeyo ganacsiyada waaweyn oo kale inta badan business administrationka Soomaalida aad bartaan iyo IT-ga waa intaan ka ogahay aad inta u bartaan haddaad baratay ha eegin kambaniga weyn kuwa kale ku baahan baa jira ما شاء الله dukaamada tag صح kuwa stoorka yar retailiska iyo ha صح adigu wax abuur صح u tag waxaa tiraa waxaan bartay صح shaqaan rabaa صح aan kala faa'iidno anaan cilmiga ku siiyo adigana faa'iidada isii ما شاء الله marka taasaan idinkula talin haddaan soo gabagabeyna barnaamijka wuxuu ahaa ragga mise dumarka yaa ka jiifa wadanka marka insha allah waxaan ku soo gabagabeynaynaa aniga waxaad iga dhaadhicisay labada dhinacba inay shaqo u baahanta laga soo wada shaqeeyo insha allah waxaan idinka rajeynaya laga wada soo shaqeyn doono xagga nagala socotaan waa idaacadda Khalid Somali American Radio anigoo ah Prince Ali iyo aniga Kawsar Maxamed Cabdullaahi intaan ku kulmayno barnaamijka mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Cut. Now you guys made it. That's really great. I like it. Phobia is a controversial topic, Alhamia. Controversial topics. This